وكما libaaxa saxaraha waxa uu ku dhashay Umar al-Mukhtar tiro lagu magacaabo Jansuur oo ku taala bariga Liibiya sanadku markuu ahaa 1862 waxaana xilliga xukumaysay dawladda Cuthmaaniyiinta waxa uu aabihii dhintay isagoo inan yar ah aabihii markuu dhimanayay waxa uu ku guda jiray acmaasha xashka inta kadib waxa kafaala qaaday sheekh lagu magacaabo Xuseen al-Gharbani waxaana uu gaalay madrasa quraanka lagu barto inta kadibna waxa loo diray meel lagu magacaabo Jarquub soo cilmiga u sii barto macallimiintiisa wax u dhigaysay waxay uga marxaati kaceen aqli badnaantiisa iyo firfircoonadiisa waxaanu sidaa ku kasbaday sumcad wanaagsan waxa uu xalin jiray isqabqabsiga dhexmara qabaa'isha intaas kadib waxa uu ku biiray dad ka soo horjeeday gumaysiga sida Ingiriiska iyo Faransiiska intaas kadib waxa ku biiray koox ka dagaalamaysay dalka Jaad intaas kadib waxa ku biiray koox la dagaalamaysay Faransiiska kaasoo qabsaday goob xilliga ka tirsanayd dalka Liibiya oo ku taal xuduudka labada dal intaas kadib waxa looga yeeray Liibiya si uu uga qayb galo dagaalo lagala soo horjeeday Ingiriiska xilligaasna Talyaaniga ayaa ku soo duulay qayb ka mid ah Liibiya oo ay xukumaysay dawladda Cuthmaaniyiinta xilligaasna Umar wuxuu iska bedelay macallin Qur'aan waxaana uu noqday mujaahid waxa uu kala hortagay ciidan aad u yar marka loo eego ka Talyaaniga oo ka awood badnaa xagga tirahaan iyo quwadaba kadib waxa uu awooday inuu dib u riixo iyaga u gurguurtay dhinaca Jabal al-Akhdar ama buurta lagu magacaabo Jabal al-Akhdar ugu dambayn ciidanka Talyaaniga ayaa qabtay Umar al-Mukhtar waxayna ay dildileen sanada markuu waa 1931 1915keedii laxadaadkii noloshiisa kelmadii u dambeysay uu yiraahdo waxay ahayd annagu isdhiibi mayno waanu guuleysanaynaa ama waanu dhiman taasina ma aha dhamaadka balse waxa idinku waajib ah inaad la dagaalantaan jiilka soo socda iyo jiilasha ka sii dambeeya waxa lagu naanaysay naanasyo badan oo ay ka mid yihiin Sheekh al-Mujaahidiin iyo Asad as-Sahara